qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar Ilaahay isugu daray qurux iyo xoolo. gabadhii Ilaahay quruxda iyo xoolaha isugu daray waa la guursaday markii hal cunug dhashay kadibna waa la furay. haddaba gabadhaas quruxda badan xoolaha badan hal cunug bis markii dhashay in la furo maxaa keenay رأيك كسودي بعد إن شاء الله. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا نجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية السعسوب وحاجري جري جبر أو أبه هذا كليت وكبلي يعني مضي إهات أبد حول بدن ولها جبر أنا أهدي وقرحانات حوله بدنا أبهد لهانا ويدا حشي يعني وجبر قروح إيه حوله اسكو درستي نينا صدونتي ويجورستي حل سنة مركي إسقابين كدب جبدي والفر انت كلي يكون إكانينه جبدي نينك كلاتاجين عنوجي اسكو قبصدين محكمة إسلا آذين جبدي عنوجي والغا قاتو والغا حكومي haddaba maxaa keenay gabar qurxan xoolo badan leh hal sano kaliya markii la qabo in la furo maxkamad la aado cunugina laga qaado jawaabteedana haddaan guda galeynaa insha Allah. gabadhiida ka sheekeynayso waxay tiri markaan isguursanay ninkii waxaan u qaatay xoolo aniga leeyahay kalo maadaama qof lacag la'aan ahay aan aad u qurxanahay waxaan bilaabay marka ninka inaan oola dhaqmo sidii qof shaqaalo kalo waxay baratay gabadhan boosay ahayd mudiiray ahayd shirkadda dhan maamulay ahayd marka ninkii markay guursatay waxay hilmaamtay ninka levelkiisa iyo shaqaalaha inay kala duwan yihiin ayay hilmaamtay waxay baratay qofay amrto iyo qofay sameey iyo hasameynin ay tiraahay baratay sheekadii marka ninkii la soo gashay waxay tiri isbuuc markaan isqabnayba waxaan ku bilaabay saan qalad waay saan sameey meeshan inaa timaadid waqtigaas inaa soo gishida waqtigaas inaa baxtid waaye ninkii isbuuca kood markuu ii dul qaatay wuxuu bilaabay markii inuu ila hadlo aniga waxay tiri adduunka ma uu jeeday waxaan rabaa ninkan amarkayga hadduu diido waxaan haystaa inuu nin qaldan yahay uusan istaahilin. arrintii waa soo jiidantay markii hal sano noo dhamaatay ninkii uu ila fariistay wuxuu yiri maqal walaale aniga saan kuma noolaa karin ninkaaga ay shaqaala ku shaqeeyo miihi aniga xuquuq ku leh saa xuquuq u leedahay ana xuquuq ku leedahay shirkadaada iyo guriga waa kala duwan yihiin waxaan ku dheeytay maqal shirkadayda iyo gurigayga isku mid waa labada ana maamulo ka hadaysan ku cajibinin maca salaama. ninku wuxuu ugu yiri war hebloy ka fiirsa hadalkan waxaan dheeytay fiirsasho ma jirto hadalkayga ma maqlaysaa ma yasoomahan madaxayga banaanka soo dhig. ninku wuxuu ugu yiri waa furantahay كلمتي مركان مقلي حيت روا وقادن واي وفهمي واي وفرنتها حنون كذا مالنتاس ايغو هريسي ان دريمو سكلا نقد انيغا دنبو ان ريا كجيرو ان سوجيدو وا غرا واي كلمه وفرنتها بخيل نقطي تري علاس خفيف انا واي واشتي تري نينك وفرنتو يري وايغا تغي تري وحير كدب وحنونسدي اسبitaal لي جي وسو فيعنادي قف جيسي اسكا سو دغي waxaan bilaabay marka shaqadeedii inaan iska wato cunugiya dhaxda ka baxay marka ninkii wuxuu yiri walaali cunugayga isii waa u diiday maxkamadu tagay wuxuu sheegay marka aniga inaan jadwal u hayno cunugan oo ka mashquulsanahay sida darteed cunugiisa inuu asiga u baahan yahay maxkamad markii uu wareysay runtan u sheegay cunugii asiga loo xukumay waxay tiri intii markii igu dhacday intaan ka toobadkeen la kibir isla weynayaan ka sii qaaday waxaan bilaabay fasax inaan galo marba magaala aan aado xoolahayga aan ku raaxaysto waxaan badheeytay nin ma u baahnayba nin maxaan ku falaa nin gumaysanay ma bariyo xora ah aniga saan u socday waxay tiri maalin marka hooyadii guriga igu timid waxay u baahneed ukun u baahneed gaarigayga soo qaatay waxaan soo maray marka maama jidka ukun ku gadayso waa ima 10 xabo ukun oo qaaday meeqa waa markaas waxay u tiri waa 10 riyaal waa 10 riyaal ka badan malaayiin leeyahay laakiin dib aan ku dhibaayo waxaan dhigtay 10 muqsinay 8 muqsinay musa kaaga taga maamada lacagta u baahnad hay hooy isii tiri 8 aan ka soo qaatay hooyadii aan u keenay hooyadii marka ukunta u keenay kadib saaxiibtii aan wacday waa baxnay cashan aadni maqaayaan taknay markaan casheynay ninkii ii keenay kaashiirka lacagta ii keenay waxaan ku dhameeqa waay warkaas wuxuu u yiri waa 280 waa laba qof cashadooda waa 20 kana waxaan ku dhahay tiri ku darsada waa iska soo baxay gaarigayga soo qaatay saan u soo socday dhaxda markuu gaari meel ku dhuftay uu iga jabay gaarigii qofaan gacanta u taagay qof kastaan gacanta u taagtay uu iga socday
hal nina marka oo gaari duq wato isoo agmaray ninkii ii joojiyay gaarigii lii joojiyay markaan arkay ninkan banaanka ka fiiriyay nin iska reebaadiyo aka waa u soo dhawaaday anoo baqaayo ninkan amuu ku xaday xoolaha amuu ka dhacay isdhahay markaan u soo dhawaado waxa arkay tir quraan u shidan xogo qalbigayga waa degay waa soo fuulay gadaalan fariistay waxaan bilownay marka ninkii xogo inaan sheekaysano marka ogaaday inuu jaamici yahay laakiin shaqo la'aan uu yahay oo taxi wado xogo qalbigayga uu day waxaan sidii cala qalninkan nin mutacallim waaye soo soconay dhaxda markaan marayni wuxuu arkay tir qof oo banaanka wax ku gadaa sabuul gadaaya aragtay ninkii sabuulka gadaaya u soo degay wuu weydiiyay meeqaawa wuxuu sabuulka halka xabba waa 1 shilin waaye 2 xabuu ka qaatay 10 shilin uu siiyay inta kalena iska haysuu yiri gabadha dariishadii ka fiirinaysa markuu soo noqday waan ku dhahay tir ninkan 2 shilin uu ku weydiisay 10 ana siisay 2 kalina waa ka soo qaadatay wuxuu yiri arintan waxa sameyn jiray aabahiya sameyn jiray qof faqiir markuu arko wuxuu ka lacag badan ugu dari jiray markaan weydiiyay aabo maxaasan u sameynay markaan dhahaynay wuxuu ugu jawaabay yaa bunay wiilkaygu ninkan miskiinka xoolaha hada ugu dartid waxay ku noqonaysaa sadaqa asigana ma daleemayo dulinimo ma dareemayo qof shaqaysanayo lacag extra loogu daray waaye waa sadaqa mughallafa bi'izza waa sadaqa sharaf ku daboolan weeyo qofka waxaasiis waa tan hadoo kale magaalada laga qaat bakshiisha la siinaa tiba la siinaa waa sadaqa waaye laakiin si kale oo la reey magaaleeyay waaye markuu wuxuu arimaas oo kale markaan sameeyo farxadaan dareemayo wiil gabadha iyadoo tiiri la yaaban ayuu gurigeeda geeyay waxay ku tiri meeqaa waaye markaas wuxuu yiri maya waxba kaaga ma baahni hada wax isii leeyahay qof miskiin hada aragtid caawi intaas waxa isii leeyahay gabadha gurigeeda soo gashay aadi u fikirtay waxay isbarbar dhigtay ninkan faqiirka ah oo ninkii faqiirka caawiyay lacag ugu daray iyadana naagtii faqiirka oo kunta gadaysay lacag ka dhintay dadkan u baahnayna lacag extra siisay iyadoo naxsan oo fikirayso ay gaarigeedii kala soo qaadatay waxay tiri ilaahayow naagtaas itus oo kunta gadaysay waxa laga yaabaa daacad inay ka ahayd toobadaas ilaahay wuu tusay marka naagtii oo kunta gadaysay ugu timid iyadoo meeshii joogto ukunay ka qaadatay waxay tiri meeqaa waxay tiri halka xabba 1 gini waaye hal shilin oo kala waaye 500 siisay maamadii inay faraxday ee istaagtay waxay tiri hadda waa bixi karaa diinta lagu leeyahay waa iska bixi karaa waxay tiri gabadhii oo kibirka badneed oo quruxda badneed xoolaha badneed awwal marra fi hayati markii ugu horeeyay noloshayda aan farxad qalbigayga ka dareemay tiri anigoo faraxsan aan gurigay iska tagay habeenkii dhan farxad ma garanay waxa la faraxsanahay laakiin farxadan dareemoyay habeenkii waa seexday subaxii ilaahay amarkiisa waxay tiri ninkii aan kala tagnay ayaa albaabkii ugu soo garaacay oo cunugeygii wado markaas wuxuu ugu yiri cunugaaga waa keenay ani safaraan rabaa inaan galo waa soo shaqaysana saadan cunugeyga ugu caynin oo aadan dhihin aabaha nin faqiir u ahaa gabadha isla markii way istaagtay aadi u faraxday ninkii u mahad celisay waa mahadsantahay tiri hal waxaan ka dalbanaa waa ku baryaa markale aroos isoo cisho ballan ku qaada waa isbedel sidii hore miihi cunugeena aan wada korsano ballan waxaan ku qaaday inaan hagaagayaan ku ballan qaaday ninkii subhanallah qalbigiisa ilaahay soo wareejiyay waxay tiri alxamdulillah maba idibinbo isla markii uu yimid waalidku iga soo doontay waali guursaday waxay tiri hadda farxadan ku noolahay alxamdulillah 5 ilma kale ilaahay iga siiyay ninkii aan waxaan dhigtay adiga mas'uulka shirkadda iyo ilmaha iyo anigaba adiga mas'uul naga ah meeshaan u jeedisidan u jeedsanayna maalintaas igu horeysay tir farxad iyo nolol iyo hooyanimo iyo gabarnimo aan dareemay tiri sa u jeedaan qisadan waa qisa aad u qiimo badan oo aad u faa'iido badan qaar kamid ahaan sheega idikana inta kala soo qora insha Allah su'aalna ka soo jawaaba gabadhan ma istaahishay in la furo mise ma istaahilin su'aashaasna ka soo jawaaba faa'iidada koobaad waalidiintay ku socotaa caruurtaada waxa ku tarbiyaysaa xoolahan inaysan qiimo badan lahayn waxa ku tarbiyaysaa ibn aadanka wuxuu sharaf ku leeyahay ibn aadanimadiisa inay tahay qofka maanta lacagta le birri faqiir uu noqon karaa qofkan faqiirkana birri ghani uu noqon karaa qisooyin badan saasoo kala waa dhacday nin maanta madax ahaa ninuu u duleystay ninkuu duleystay birri madax noqday asigii wax lagu sameeyay marka adduunyo wa tilka al-ayyam nudaawilha bayna an-nas waalidiinta marka caruurtooda waxa la rabaa inay baraan dadka inaysan iska kibrinin hatta hadii lacag leeyihiin inay dhahaan oo kale qofkan faqiirka waa walaalka waaye
qofkan faqiirka ina caawisi sharaftaada ku jirto ina saas caruurta loo tarbiyaa loo baahan yahay faa'iidada labaad gabdhahay ku socotaay sharaftaada iyo gabarnimadaada waxay ku jirtaa ninkaaga ina ateecdid wallahi billahi tallahi saddex magac ilaahan kugu dhaartay sharaftaada iyo gabarnimadaada iyo jaceelkaaga iyo wanaagaaga wuxuu ku jiraa ninkaaga ina ateecdid ateecitaanka ninkaaga ateecaysidaa sharaftaas ku yeelanaysaa haddii dhib ku jirto inaa ninkaaga ateecdid ama ay qalad tahay allaha ku abuuray oo hooyada iyo aabbaha kaa jecel maslaxadaada yaqaano kuma dhihi lahayn ninkaaga ateec nebigaagana sallallahu calayhi wasallam gabdhaha kuma dhihi lahayn ateecitaanka ninkaaga ateecaysidaa janno ku galaysid ninkaaga waa jannadaada iyo naartaada ninkaaga ateec waxaas dhan waxay diinta kugu sheegaysaa nebigan uu kugu sheegaa wuxuu rabaa inaa farxad ku noolaatid faa'iidada saddexaad nimankii ku socotaay haddaa guursanaysid gabar diin leh guurso akhlaaq leh guurso ha u guursanin gabar qurux iyo xoolo ha u guursanin wallaahi billaahi tallaahi saddex magac ilaahay idinku dhaaranaahe haddaa u guursatid gabar qurux u guursatid quruxdeeda way kugu dullaysanaysaa haddaa xoolo u guursatidni way kugu shaqaysanaysaa idan waxaa loo baahan yahay adigaa ninkii ragga ahaa waxaa loo baahan yahay marka inaa adiga qaa'idka noqotidaa loo baahan yahay laakiin gabar hadday xoolo leedahay ama ay kaa laandheer tahay si dadka qaarkooda ay dhahaan waa ku dullaysanaysaa hoosay kuu dhigaysaa inay ku isticmaalsatay rabtaa gurigana saas kuma shaqeeyo guriga inuu hal hogaamiye lahaado waayo hogaamiyahana waxaa noqon kara keliya ninka period alaa yaclamu man khalaq wahuwa allatiifu alkhabiir ilaahaygiina abuuray na yaqaanay ayaa xukunkaas soo dejiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaa labada waxaa mas-uul ah ninkaa mas-uul ah ninka qiyaadada iska leh laba qofne qiyaada madaxweyne ma noqon karaan maraq waxaa le idaa kathara atabaaquuna fasada almaraq hadday kuukska dadka cuntada karinaya hadday bataan maraqa wuu hallaaba qof cusb badan uu ku daraa kan basbaasuu ku daraa kan liinuu ku daraa waa hallaaba doontii laba naaqood lehna waxaa leedahay waa ciinbataa doon haddii laba kabtan leedahay idan waa ciinbanaysa idan guriga hal qaa'id inuu yeeshta waaye hal hogaamiye inuu yeeshta waaye hal qof in laga dambeeya waaye qofkaasna waxaa waaye ninka waaye sunnada saxda saas waaye guriga wanaagiisana saasuu ku jiraa faa'iidada afaraad dadka caawi wallaahi haddaa dadka caawisid farxada qalbiga ka dareemaysa iweydii is'al mujarrib walaa tas'al tabiib dhahan dadka qof wax baroobay weydii wallaahi maalinta qof caawisid farxada dareemaysa ilaaha ku caawina wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhihi ya allah حديث وصحيح صلى الله عليه وسلم نو شيغي إلهي قفك وعاونا ما دامو قفكا ولالكي سكال عاونا مربتا فرحت إنا كن ولاتد مربتا ولولك إنو كاتقو مربتا ملوكت إني كاتقتو ولالك عاوي قف مسكين عاوي هدا عاوسيد إلهك وعاونا هدو إلهك وعاوينا وحكوه الإستاغاي ملاحان خير أدون إيقي آخر واسكو درستو جيبك وذاقشت إباتا لنا والغا إلالنا فإذا شانات هدو قالت كاقالو توبتكين إلهي أنقو إلهي ويديسو إنو كودن بدافو إلهينا البابي ذا خير كوفرا توبوا إلى الله إلهي أنقو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله دنبي كستا قشيد وحكستا آسم ميسيد إلهي أطوبتكين إلهي البابي ذي سوا فريهين وكجعليهي هويري آبه وكاجعليهي وونو كسودوينا وونو كربا أنقو الله كو يرايو فإذا اللحات إيه تنتوضبات سديدات سقالات طبانات أذيقا لغا ربا كسو جواب نعم إذوين بدنا كجف قف عقل بدنا تهي سوقر وحالاقيا وقف كالإنو كفايدة sometimes أنيقا حتى واكون نقضان وأقرستا وحيالا بدنا ميلان كو قرطا جرت فإذوينك خير الله يدين سيو بخيلها نقنينا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ها إلا بنا سجاشي كالنا كسو جواب تاني قبدان لفوري ما استاهش مس ما استاهلين أذيقا دعاها لد مصامي لهاد أذيقا لغا سؤاشي كسو جواب إن شاء الله إلى جمعة صوصوعة لاقارة وحيدين كجتاقا خير دقيسو كفا إليسو ولا لها كالنا أسي قدي وإنو جمعة صوصوعة إيو قصة عصب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.